بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكس صاحب الدمانتين بميل والبؤاد دنيا كجوجتان وحتكون سور دواتان ورركي قد بي حيسد قبل كبريقة دحي دولة ودن كإيران إيا ودمد عربت ومدى حيسلق لي هقاميها وقصر ريا ودن كإيران آيات الله مجتبع الحسين خمان يقر ورسوساري محويهي مدحونا ودن كمريكا كدون ترامو سكر ولقاها لي وضا هذر كدولة ودن كإيران يا مريكا كودا حيا حالذي قد بي قد أهنا ويرر إيا ويرر عليس كإسو تقي إمارات كعربت إيا قد أهان wadamada khaliijka dawladda wadanka Iran iyo barnaamijka ku soo qaadan doona duqeymo culus iyo dagaal gacmaha la isla galay ayaa ka soconaya guud ahaan wadanka Lebanon barnaamijka ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo Donald Trump khilaafad cusub u dhaxeeyo maxaa ka jira in Netanyahu uu diiday casuumaad u fiday madaxweynaha wadanka Mareykanka barnaamijkan ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo wararkaasi xogo kale oo dheeraad ay wixii soo kordha barnaamijkan ku wadaagi doona hadii la ka dhigo aad u mahadsantiin shirgaray muuqaalka kanaalka aragtidiina ka dhiibtay aad u mahadsantiin soo dhawaad wahag وما عندنا ودمد عربتي دولة ودن كيران لكن مركو جهرس مدحونا ودن كمريكا كدونالد ترامب يا وير كقاد دولة ودن كيران وحنو الشيء صورة جر إن نقول دون مرنا إن دولة ودن كيران لو أقلاده إن هو بنقل رئيس ما يشتها لكن إن عكر دونالد ترامب وحاو مركز برتو مركز ترى سوشيال يراده ولا يسوقري السوق مركز يقوري جر وحسن إسلام مركز التاجر مربورا ليو ولا ليس أنت صحون مغطي في الرئيس دوين وربعين توقف لنقينا يعني وحلو قاطي دونالد ترامب مركز إنه كهن جب يدقال عرس ولا قاضي wadanka Iran waxa kale oo Donald Trump uu sheegay in dawladda wadanka Iran marna aan cunaqabateynta laga fududeyn doonin ilaa inta ay isdhiibto mooyaane ayuu yiri ama waa isdhiibaysan ama cunaqabateynta yar idinku kordhinayna marba marka ka dambaysa ma jiro albaab kale oo wada hadal ah oo aan la yeelanayno dawladda wadanka Iran ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay Donald Trump ma jirto ayuu yiri cid dawladda wadanka Iran weligeed wada hadal la gaartay niman barnaamijkooda uu dhamaada ma aha sidaas daraaddeed dawladda wadanka Mareykanka wareeg kale oo colaad ay isku diyaarinaysa ayuu yiri madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump laakiin Iran dhankeeda qaad qabo ma aha iyaguna mas'uuliyiin sare oo u hadashay dawladda wadanka Iran ayaa Donald Trump ku yiri nama taqaanid oo dunida maba joogto bacid dagaal inta naga timaaday ama nala soo gashay naga guuleysatay adiguna si wanaagsan ayaad noo soo weerartay adinkoo laba dawladood oo nuclear ku xambaarsan ayaad ugu dambeyntii muddo 40 maalmood kadib aan dhuftina dib u laqday hadii aad isku diyaarinayso inaad Iran jabiso malahaygu waxa tahay qof aan habeen jirin Iiraaniyiintu ma aha dad la jabiyo darana man naqaano ayuu yiri mas'uul sare u haday dawladda wadanka Iran waxa kale uu sheegay Donald Trump gacanka Hormuz inuu ka doonayo dawladda wadanka Iran guud ahaan in la soo galiyo gacanta dawladda wadanka Mareykanka Iran ayaa arintaasi ku tilmaantay waa suurtagal taasi waa sameynayna laakiin markuu ugu horeyso Donald Trump hadii aad tahay waxaanu ka doonaynaa qorraxda inaad galbeedka ka soo bixiso hadii aadan qorraxda galbeedka ka soo bixi karin gacanka Hormuzna weligaa ma qabsan kartid fariintaas micnaheedu waxay tahay xoog bal lagu haysta haddii Itaal leedahay cidi kama hortaagana ismuuji ayay ka wada dawladda wadanka Iran saacadii u dambeeyay hadallo kulul oo dawladda wadanka Iran iyo markaasi maamulka Mareykanka u dhaxeeya ayaa baraha bulshada la isku dhaafsaday welina wada hadal toos ah ma jiraan laakiin Donald Trump waxa uu sheegay wada hadal dhinaca telefoonada ah oo markaasi loo kala dabqaadayo inay jiraan waxa kale dawladda wadanka Mareykanka gaar ahaan aqalka laga sheegay inaan mar dambe 18 saacadood oo safar mas'uuliyiinta wadanka Mareykanka aanu gali doonin iyadoo la doonayo Iran wada hadal in la galo ayaa lagu yiri war ka soo baxay wadanka Mareykanka gaar ahaan aqalka cad ee wadanka Mareykanka dhinaca kale hadii aan u nimaadna telefishinada qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil ayaa guurinaya in madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu ay isku afgaran waayeen kulan qorsho u ahaa in la qabto inkastoo maalin kasta ay ka wada hadlayeen sida laga yeelayo dawladda wadanka Iran iyo colaad gob mar kale dib u soo cusboonaata iyo in dawladda wadanka Mareykanka iyo xogaga shuftada ah ay mar kale abitaad u hayaan ama ay han u hayaan weerar lagu qaado wadanka Iran saraakiisha iyo generaalada wadanka Mareykanka ciidamadooda maamulaya ayaa iyaguna gacanta ka taagaya weerar labaad oo lagu qaado wadanka Mareykanka dhibaatada kale ee madaxweyne Donald Trump haysatana waxa kamid ah aqalka Congress oo Trump u sii hanjabaya maadaama madaxweyne Donald Trump muddadii 60 maalin ahayd ee sharciga wadanka Mareykanka uu siinayay si dhamaanayeen hadda mar kalena uu lacag tirabeel weydiisanayo si dagaal looga laabto Congress ayaa iyaguna dadaal adag ugu jira in la xakameeyo Donald Trump wayna adkaan doonta sida qaar kamid ah khubarada iyo markaasi dadka militariga ku takhasusay ay warinayaan in hadda Congress ay barnaamij abaabulayaan kaas oo looga hortagayo mar labaad in
weerar laga geliyo weerar ama dagaal la geliyo ciidamada wadanka Mareykanka hase ahaatee gobolka bariga dhexe marka la eego saadaashiisa iyo markaas sawirada ay qaadayaan dayax gacmeedyadu intooda badan waxa la wirinaya dhibaato culus inay jirto Mareykankana iyo Israel ay si weyn u diyaar garoobayaan Mareykanka ayaa doonaya mar kale dagaalka inuu ku laabto gaar ahaan madaxweyne Donald Trump inkastoo la wirinayo inuu qasban yahay oo xiniyaha ay haystaan xoogga gumeystuhu laakiin si kastoo ay ahaato khubarada intooda badan waxay leeyihiin dagaalka waa lagu laaban doonaa Mareykankana dib ayuu isu soo dhisaya hub aad u tiro badan oo caalamka intiisa badan laga soo wada daabulay ayaa la wirinaya gobolka bariga dhexe Mareykanka inuu ku soo daabulayo inkastoo hubka wadamada reer galbeedka iyo kan Mareykanka marka laga hadlayo fagaaraha dagaalku ay si weyn madhaleys u noqdeen haddana dowladda wadanka Iran ayaan qaado qabo ahayn sida qaar ka mid ah khubarada militariga ay warinayaan waagaga dhinaca kale hadii aynu eegnana dowladda wadanka ee Iran iyo madaxda Carabta ayaa madax iskula jira kulanka markaas oo ka soconaya magaalada Jeddah oo isugu imaanayeen wadamada Khaliijka ayaa si weyn looga soo weeraray dowladda wadanka Iran waxaana lagu tilmaamay gacanka Hormuz oo dowladda wadanka Iran ay xirtay arintaas in dhibaato culus ay ku noqotay wadamadaasi weeraradii dowladda wadanka Iran ay ku qaaday fariisimaha wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka iyo maamulka gumeystaha ay ku leeyihiin ayay si weyn u dib markaas u weerareen xoogagga Khaliijka waxaana dowladda wadanka Iran ay ku tilmaamay inay khalad inay weerarto goobaha wadanka ku yaala wadamada Khaliijka ku yaala oo ay dowladda wadanka Mareykanka iyo xulafadoodu ay leeyihiin waxba yaab kale waxay tahay waxan madaxa ah ee meesha fadhiya marna ma cambaareen isla markaana kama hadal weerarka gardarada ah ee lagu qaaday dowladda wadanka Iran laakiin Iran ayaa si aan ka gabasho lahayn durbaba iyana uga jawaabtay waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dowladda wadanka Iran tiri marna ma aqoonsan doono gardaro iyo daadaansi ayaan u aragnaa hadalka ka soo baxay gudoomiyaha guud ee amniga wadamada Khaliijka kaas oo ku tilmaamay dowladda wadanka Iran gardaroole inay tahay isla markaana gacanka Hormuz ay si gardara u xiratay waxay tiri dowladda wadanka Iran anagu nafteena shacabkeena iyo wadankeena ayaynu difaacaynaa haddaad wax isku haysaan diyaar ayaanu nahay miiska wada hadalka isukaaye keena adinkoo aynu ognahay in markaasi aad dhibaatadiina la ku hayay qayb ka ahaydeen inaad hadda mar kale weerar nagu soo qadan idinkama aqbali doono weliba dowladda wadanka Iran waxay markaasi ka codsatay wadamada Carabta waa inaad magdhow ka bixisaan dhibaatadiina loo geystay maxaa yeelay adinka ayaa ahaa halka laga soo dulaya wadamadina inta laga soo dulo ayaana burburinayay agoonta iyo dadkii shacabka reer Iran ee la laayay dhamaantood wadamadina ayaa laga soo dulay dhinaca wadanka Iran markaad eedeynaysan waxa idinku waajibtay ayay tiri dowladda wadanka Iran waa inaad magdhow ka bixisaan dulmiga aad u geysateen shacabka wadanka Iran ayaa si adag ugu jawaabtay wadamada Carabta fariinta dowladda wadanka Iran waxay noqotay mid wadnaha jirtay wadamada caloosha u shaqeystayaasha ah ee Carabeed kuwaas oo si wanaagsan u dhalilay dowladda wadanka Iran inkastoo qaarkood la weeranayo inay dhalisha afka mooye aan urka ka jiran oo Qatar iyo Saudi Arabia uga horeeyaan haddana isu tag Imaaraadka Carabta iyo wadamada Qatar iyo Kuwait wadamada isu tag Imaaraadka Carabta Kuwait iyo Bahrain ayaa si weyn isu dhaarsanayaan dowladda wadanka Iran waxay wacd ku martay cid walba oo cadowtooyo u muujisay in meel uga qoran tahay wixii aad nagu sameeyeen ma ilaawin xisaabta Soomaaliyeed tagi doonta ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda wadanka Iran dhinaca kale hadii aynu eegnana ninka ugu sareeyay wadanka Iran Ayatollah Mujtaba Ali Hussein Khamenei ayaa war laga soo xiganaya laakiin waxa markii ugu horeysay fariistay waxa loo yaqaan guddiga khubarada wadanka Iran kuwaas oo markaas dib u habeyn iyo falanqeyn ku sameeyay qodobadii ugu dambeeyay ee maamulka Mareykanka laga hadlayay waxaana guddiga khubarada dowladda wadanka Iran ay sheegeen ilaa iyo hadda si wanaagsan in ay u wadaan markaas xoogag wada hadalada ugu jira dowladda wadanka Iran mana jirto wax isdabamarin iyo khilaaf oo ku saabsan wada hadal la galo dowladda wadanka Mareykanka si guud talada wadanka waxa ay ku socotaa sidii looga talagalay amarka hogaamiyaha ugu sareeya wadanka Ayatollah Mujtaba Ali Hussein Khamenei ayuuna wadanka u soconaya guud ahaan laamaha amaanka iyo kooxda wada hadalada intoodaba waxay qaadanayaan amarka odayga ugu sareeya wadanka Iran hadda gudaheeda si wanaagsan ay u soconayaan wax walba ayaa lagu yiri war ka soo baxay guddiga khubarada wadanka Iran dhanka soo la eegay waxaad moodaysaa xaaladda marba marka ka dambaysa in ay isa soo tarayso laakiin wadamada Carabeed ayaa fariin lama filaan ah oo luqad adag ku qoran kala kulmay dowladda wadanka Iran inkastoo ilaa iyo hadda la leeyahay wadamada Khaliijka iyagu dhibaatada ayay weher u noqon doonaan waxaase ka sii daran inkastoo hadda la leeyahay dagaalka markale ayuu dib u bilaaban doonaa waxaa la isweydiinaya wadamada Carabeed cidda isku halaynaya waa hubaal sida la leeyahay in dowladda wadanka Iran markan hadduu dagaalka dib u bilowdo wadamada Bahrain iyo Kuwait iyo isu tag Imaaraadka Carabta si aan naxariis lahayn inay u duqeyn doonto muddadii xabad joojinta jirtay inkastoo xaaladdu ay ahayd mid aad u adag haddana dhinaca kale waxa
la wirinaya in ay xaaladda marba marka ka dambeyso ay aad u adkaan doonto oo ay sheekadu noqon doonto mid si weyn u cuslaata wadamadana iyagoo markii horeba ka tirsanaa kuwa dunida ugu liita ayaa haddana la wirinaya inay isku taataabanayaan dowladda wadanka Iiraan dhinaca kalena war degdeg oo hadda telefishinka Al-Jazeera saaran ayaa muujinaya in dowladda wadanka ee markaasi in ciidanka badda ee maamulka gumeystaha Israa'iil ay weerareen 7 doomood oo markaas asal ahaan ka soo jeeday ee ka soo kala tagay wadanka Lebanon kuwa wadanka ee leeyahay Spain kuwaas oo isku diyaarinay inay jibiyaan markaas go'doominta maamulka gumeystaha Israa'iil ee ku haya shacabka Gaza doomahaas ayaa intooda badan la weeraray sida la leeyahay ciidanka dowladda wadanka ay ciidanka maamulka gumeystaha Israa'iil ayaana weerarka ku qaaday goordhow ayay bilowday in doomihii ugu horeeyay la weeraro kuwaas oo ku soo wajahna magaalada Gaza waxaana lagu weeraray sida la leeyahay meel u dhow jasiiradda la yiraahdo Karit oo ku taala meel u dhow markaasay dhulka Israa'iil xoog ku haysato ciidanka badda ee maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa toddobadaas doomad weeraray waxaana saaranaa 58 qof waxaana loo yaqaanaa doomihii samarka jibinta gumeystaha maamulka Israa'iil waxaa kaloo arrintan ay noqonaysaa markii afraad u maleynaya inay tahay in markaa dad badan oo kasoo jeeda wadamada Spain ba uga badnaadaan inay isku dayeen markaas shacabka Gaza inay u gurmadaan halka wadamadii Carabeed iyagu ay si wanaagsan uga faraxsan yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka magaalada Gaza Israa'iiliyiinta ayaa isku dayay inaanay jiri doonin doomo kale laakiin dadka aragtidooda lama jibin karo waxaana la leeyahay doomo kale oo iyaguna loo yaqaan kasar al-xisaar ama jibinta kibirka Israa'iil ayaa ku soo socda magaalada Gaza shacabka ku dhaqan magaalada Gaza la daala dhacaya mid ka mid ah xaaladaha nololeed ee ugu xumaa wararkana wixii ku soo kordhay hadii alla ka dhigo way isla eegi doonaa laakiin dhan walba marka la eego waxa la wadamada khaliijku albaab aanay hore u garaaci jirin ayay garaaceen haddana marka la dagaalka dib hadii looga laabto sida la leeyahay way adkaan doontaa war degdeg ah ayaa sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa yiri Iiraan waa inay isdhiibta ayuu yiri wada hadal kale oo aan la galin ma jiro ayuu yiri laakiin dhinac kale waxa uu qoray wada hadal dhinaca telefoonada inay jiraan Iiraan waxay ku leedahay inaan isdhiibnaa waxa ka dhow qorraxda oo galbeedka soo baxdo aad u mahadsantiin saaxiibadayo waan idin mahad celinayaa mar kale guuleysta meel walba aad dunida ka joogtaan dib intaan kulma doono nabadgelyo